kusoo dhawo Universal TV marka xigta waxa kasoo qayb gashay shirkan Brussels ka waran marka hore guud ahaan shirka sida uu socday iyo sidii lagu soo dhawo shirka runtii shirku wuxuu ahaa muhiim ah aadna wanaagsan si fiican buu ku bilowday si fiican ku soo gabagaboobay ajandayaal muhiim ah laga hadlayay doorashooyinka dalka ka dhici doona 2020 dib u xoreynta dalka dhisidda ciidamada qaranka Soomaaliya inay ka mid noqoto hay'adaha caalamiga ah ee deeqaha bixiya oo la ogolaado IFI la yiraahdo International Financial Institutions oo kumadiyaha bangiga adduunku ay ka mid tahay hay'adda lacagta adduunka IMF to in Soomaaliya loo ogolaado inay deyn qaadan karto in Soomaaliya laga cafiyo deynta tirada badan ay qabto ee bilyanka dollar waxaas dhan wuxuu muhiim u yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarka dalka ay muhiim u yihiin waana rajaynayaa in haddii sidii ay tahay go'aamada soo baxay loo hirgeliyo in wax badan iska bedeli doona Soomaaliya insha Allah waxaa tahay madaxweynihii Puntland Soomaaliya marka laga reebo qorshe cad Puntland multimate shirkan dabcan Soomaaliya anagu waxaan yimid dowladihii ka xubnaha dowladda federaalka iyo dowladda federaalka wada socday dabcan ajandayaasha leeyahay ajanda Soomaaliyeed weeye goonina kuma aha dowladda federaalka goonina uma aha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa ajanda Soomaaliyeed weeye oo mid laga yahay oo meel u wada jeeda marka wax hadda meeshan la yiraahdo annaga iyo idinka ma jirto inagoo dhan oo Soomaaliya weeyaan meesha loo yimid ajanda laga hadlayaa Soomaaliya weeye Soomaaliya ayaa waxay tahay system qaadatay federaal ah oo dowlado kala duwan ah oo heer gobol heer federaal iyo heer degmo intaba kullu way wada kaabayaan iskool ujeedada leeyahay isku meel baan loo wada socdaa shirar badan hore loo Soomaaliya lagu qabtay London ugu dambeeyay oo May shirkan waa la qabtay inta badan Soomaaliya shirar badan waa loo qabtaa maxaa leedahay shirkan waa ugu daban yahay shirarka hore dabcan runtii marxalado kala duwan ay ku soo aadayeen shirarkaasi laakiin waxaan isleeyahay marxaladda ka dambeysay waxaad moodaa inay ka soo wanaagsanaanayso marka waxa iska daahdo waqtigu ha dheeraado yani horumarka la sameynaya gaabis ha ahaado laakiin haddana dee wadan burburay oo sidoo sano dhibaato ka jirtay oo shida badan soo maray xalkiisa si loo gaaraahay way iska dhibadnaanaysaa laakiin rajadu waa fiican tahay meel fiican bay wax marayaan waan rajeynaa mar ka dambeysa in horumarkaas lagu sii dhiso oo hor loo socdo doorashooyinka dib ugu laabano ma kula tahay hadda sanad ama 2 sano gudaheed in one man one vote ama qof iyo cod Soomaaliya ka dhacay waxa horta aan la isku dayn lama gaaro haddaan mar walba nidaahan waxa lama sameyn karo caqabad baa jirta Soomaaliya maanta meel badan doorasho ka dhici karta jirta Puntland baa kamid ah ka dhici karta haddii Soomaaliya 10% 20% doorasho ka dhacdo sanadkan waa wax wanaagsan 2020ka 2024ka 40% ha ka dhacdo marka maxaa loo leeyahay ma dhici karto 60 sano ka hor 60kiiba wadankeena waxa ka dhici jiray doorashooyin dimuqraadiga oo hal cod ah oo hal qof ah oo madaxweynaha lagu dooran jiray oo baarlamaan lagu dooran jiray maxaa loo leeyahay Soomaaliya maxaa looga dhigayaa inaan waxba ka dhici karin way ka dhici kartaa la isku dayaa waa inay laga mir dhaliyaa haddaan la isku dayinin de ma dhacayso weligeed doorashooyinka Puntland oo kala doorashooyin ku soo leh wararka waxay sheegayaan in madaxweyne Gaas oo damacsan yahay in waqti badan oo kororsado arimahaas xabad kama jirto waxaas waxa dad aan moogtahay aan xaqiiqada aan la soconin weeye Puntland doorashadeedu dibna u dhici mayso waqtigeeda ku dhacaysaa qofkii markaa tartamaya ha yimaado laakiin hadda in waxaan jirin la saadaaliyo oo dadka been loo sheego wax jira ma doorashada waa dhacaysa insha Allah shalayto shirka imaantaba waxaa la arkay inta badan madaxweyne Axmed Madoobe in oo inta badan ka baxay shirka arimahaasi wax ma kala socota ma anigu ma ogi wax shidaahu jira madaxweynuhu hadda maanta dhakhtar buu lahaa oo Germany baa liir buu aaday intaasun baa hadda shirka u dambeeyay oo kaga maqnaa laakiin wax shidaahu aan ogahay ma jirto